maanta waxaan idiin soo gudbinayaa wacyigelinta xanuunkan coronavirus. Sida aan la soconno, coronavirus waxa weeye COVID-19 waa xanuun uu keeno cudur virus keeno. Viruskaasoo ah mid aan ilima aragtay ah. Sida aan ognahay viruskaasna wuxuu asiibayaa difaaca qofka. Halkaasna waxaa imaanaya wax loo yaqaana ka faa'iidayste. Ka faa'iidaystayaashaas oo noqon karo qofku inuu isku arko calaamada ah inuu madax xanuun dareemo, inuu qandho dareemo, inuu qufac qalalan dareemo, inuu feer xanuun dareemo, inuu neef qabatin dareemo. Dadka qaybtood ayagoon waxba iska dareemin ayaa markii la baaro waxaa laga helayaa inuu xanuunka qabo. Dadka qayb baan waxayba lahayn qandho, laakiin waxay dareemayaan cunaha oo xanuunaya oo keliya. Haddaad aragto duuf kaa imanaya, ha u malayn inaad coronavirus tahay. Waxaa dhici karta inuu hargab caadiya yahay. sideeda ahaanba coronavirus waa qalayl, quficiisuna waa qalalan yahay. waxaana weeye waana xanuun ku gudbaya dhibcaha hawada ee ka soo baxaya qofka xanuunka sida ama qofka xanuunka qaba. qofka xanuunka coronaviruska qaba haddii uu qufaco ama adigu sidaadaba haddii aadan qabin xitaa haddaad qufacaysid ama aad hindhisaysid ka taxadar in aadan u gudbin dadka oo aad gacantaada aad isticmaasho. sida badan waa inaad samaysaa faradhaqasho. faradhaqashadu waxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan, waayo waxaad meelaha aad taataabanaysid ma garanaysid in la taabtay iyo inaan la taaban. waxa kuugu horeeya waxa weeye inaad faradhaqasho samaysid. faradhaqashadaas waxay kaa caawinaysaa in aadan xanuunka naftaadana u gudbin, naf kalena aadan u gudbin. taasna waxaa la ogaaday xanuunkaani inuu yahay xanuun ku fidaya uu qofku u gudbinayo qof kale, ama daaragti ha ugu soo gudbiyo ama meel uu taabtay oo in daaragti ha ugu gudbo, ama qofku daaragti qofku hawla ha ugu qufco ama ha ugu hindhiso ama ha la kulmo. badanaaba sida caadiya hadda la ogaaday waxaa dadka khatarta ugu jira ay noqdeen dadka bahda caafimaadka ah oo iyagu ah qofka ugu horeeya ee lala kulmayo. marka saa darteed haddii aad tahay dhakhtar iyo haddii aad tahay bukaan, labadaba waxaa la rabaa inaadan dhakhtarkuna uusan u gudbin bukaanka, bukaankana uusan u gudbin dadka caafimaadka qaba. waxaa kaloo jirta waxaa la cayimay in shaqooyinkii laga joogsaday. shaqada laga joogsaday macnaheedu ma aha in aad bulshadii kusii dhex socoto, ma aha inaad faafintii ka qayb qaadato, ee waxay tahay haddii shaqada la joojiyey macnaheedu waxay tahay in la joojiyo isu socodka, in la joojiyo kulanka meelaha makaaxiyaha iyo meelaha la isugu imaanayo, si loo yareeyo gudbinta xanuunka, maadaama uu la ogaaday inuu yahay xanuun qof ka tegaya qofna u gudbaya, ha ugu tago si dadban ama si toosan labadaba. waxaa la caddeeyey xanuunkan coronaviruska ahi inuu u gudbi karo ilbiriqsi malaayiin qof. halkii qof oo xanuunka dareemayay wuxuu u gudbin karaa 18 qofood qiyaas ahaan. sidaa darteed marka waxaa muhiim ah goobaha ganacsiga ee la isugu imaanayo inaad isticmaashid maxaa la dhahaa qofkaaga ama aad maradaada ku xirato afkaaga si aadan ugu gudbin qofka, inaad ilaaliso taabashada gacmahaaga ee aad ku taabanayso meelaha, inaad yarayso isu dhowaanshaha oo ay noqoto qofku inaad u jirsato tallaabo. tallaabadaasoo macnaheedu ay tahay waxaa la ogaaday inuusan hawada in badan kusii jiri karin viruskan, hadduusan aadan intaa uga dhoweyna uusan kula kulmi karin. sidaa darteed marka waa inaad samaysaan labada qofood waa inay xoogaa ay kala fogaadaan tallaabo. waa inaad gacanqaadka la yareeyaa oo aan laysgacan qaadin. taasina waxaa la ogaaday inay tahay waxa keliya oo iyaduna faafinta ka qayb qaadata. waxaa kale oo muhiim ah oo la rabo in la sameeyo waxa weeye haddaad isku aragto calaamadahaas oo dhan waxaa jirta xarumo loogu talagalay oo dadka lagu xanaaneeyo. xarumahaasi waa inaad wacataa nambarka 343 kaasoo 343 kaasoo kuu gudbinaya haddaad garow ka hadlaysid, haddaad boosaaso kasoo hadlaysid, haddaad gaalkacyo ka hadlaysidba intaba waxaa lagu gudbinayaa xarunta caafimaadka kuugu dhow, taasoo aad ka helaysid daryeelka. weli ma bilaaban baaritaankii xanuunka, weli nambar cad oo la hayo dad la shaki ah calaamado in laga shakisan yahay, laakiin weli qof la caddeeyey inuu xanuunka la nool yahay weli Puntland laguma hayo. laakiin sidaa la socotaan muqdisho
shalay waxaa ugu dambeysay 20 keys wuxuu marayaa 80 qofood waa inta la xaqiijiyey ee la baaray inta aan la baarin oo aan la xaqiijin iyagu waxa weeye way ka sii badan yihiin dhimashadu Soomaaliya maanta waxay maraysaa 3 qofood oo shalay ahaa iyo 2 qofood halkaasna waxaad ogaanaysaa in uu dhimashaduna ay soo badanayso waxaad ogtahay baabuurka ka soo baxa Muqdisho in uu isla bariba iman karo Gaalkacyo ama iman karo gobolada dhexe taasina ay tahay halka qof ee viralka wada ee la soo raacay intaasoo qofood ma aha virusku isla saacada qaaday isla calaamadii saacada ka soo muuqanayo laakiin waad sidaysaa intaasi didna waxaad ku tala gashaa inaad sii faafinaysid darteed marka waxaa muhiim ah isu socoshada gobolada in la hakiyo maadaama xanuunka dhimashadiisu maanta uu soo batay oo haddii cirkiina la xiray badina la xiray in dhulkana lagu daro oo dhulka la xiro midda kale waxaa muhiim ah masaajidada culimadu waxaa fiican in iyaguna ka tashadaan maadaama distansiga hal talaabo aan la isku jirsan karin oo masaajidkuna dadka badan ay isugu imaanayaan xanuunkuna uu yahay xanuun ku gudbaya hawadii iyo taabashadii waxaa iyadana cayiman in la yareeyo oo laga taxadaro sidii loo xakameyn lahaa si aanay ummadda bulshada inteeda kale loo badbaadiyo caruurta yaryarka ee iskoolaadka laga xiray macnaheedu maaha in ay iskoolaadka hadday ka xiran yihiin inay magaalada ku cayaarayaan waxaa muhiimna hooyo iyo aabbo kasta inay ciyaalkooda ay ku xareeyaan guryahooda